sida la socotaan ilaa 70,000 oo qoys ayaa ka barakacday xaafadihii ay deganaayeen waxa iyadana dhacday in qoysas badan ay ku xayiran yihiin goobo kala duwan oo kamid ah degmada beledweyne ee gobolka Hiiraan ugu yaraan dadkiina 40% kamid ah xaafadda Buundaweyn ay go'doonsan yihiin oo meel ay uga baxaan ay la yihiin deegaanadii ay ku carari lahaayeen ama ay ku baxsan lahaayeen xaafadaha kooshin gaar ahaan raadaarka ilaa 60 qoys ka badan ayaan warbixinteeda haynaa inay ku go'doonsan yihiin xaafadaha Xawataako iyo qoysas badan oo kala ayagana ku go'doonsan xaafadda Xawataako warbixinta aan hayno waxa waa dhimashada ilaa ay gaaraysa ilaa iyo 30 qofood ilaa hadda la soo sheegay inay ku dhinteen tan waxay la mid tahay xasuusinaysaa biibaxadii 1982 ka dhacday gobolka gaar ahaan degmada Buulaburti oo markaas aan markhaati ka ahaa dadka ku koray webiga jiinkiisa nahay waan garan karaa dhibaatada ay leedahay biibaxada laakiin xilliga dalka dawlad ayuu lahaa waxaan xasuustaa in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay noo soo gurmadeen ay naga badbaadiyeen meelihii ay biibaxada ku dhufatay oo ay nadijiyeen xarumo magaalada banaankeeda ah oo si maaragtay aan ugu noolayn sidii inaan gurigeena ku noolayn oo kale maanta ma haysano dawladdaas iyo awooddaas dawladda midna ma haysano sidaas daraadeed ayaan waxaan u baahanahay inaan dhammaanteen garbaha isqabsano oo aan gargaar u fidino walaalaheen gobolka Hiiraan oo dhibaatada ay soo gaartay waxa la ii sheegay dawladda inay hal diyaarad ay u dirtay kuma filna dadaal intaas ka badan ayaa laga rabaa dawladda sidoo kale waxaana loo sheegay inay jiraan dad isxilqaamay oo ayagana hal diyaarad oo gargaar geeyay hay'adaha SAF iyo WFP iyo UNICEF intaba inay gargaar meesha gaarsiiyaan naloo sheegay waan halkan ka jeedinaynaa shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwooda wax quura kuwooda wax haysta inay gargaar u fidiyaan walaalaheena dhibaataysan gudaha iyo dibaddaba Soomaalidu waa dad iskaaba waa dad istaakuleeya waa dad isgarab istaaga xilliyada duruufaha adag ay jiraan waxaan xasuustaa abaartii ku dhufatay gobolada Gedo 2005 sidii u gurmatay tii ka dhacday hadda sanadkii hore Beledweyne in kastoo la ekeen xajmiga dhibaatada intaan sidii u gurmadeen iyo dhibaatadii weerarkii argagixisay ee qaraxii ka dhacay 14 Oktoobar magaalada Muqdisho ka dhacay intaba falceliskii gargaar ay dadka Soomaaliyeed u fidiyeen waan xasuusanaa asagana waxa kaloo aan maqlaynaa in Jubbaland meelo kamid ah iyo Hirshabeelle qaybo kale oo ka tirsan ee Koonfur Galbeedba inay fatahaada ku dhufatay ama ay ku dhufo rabto marka saas daraadeed gurmadkan dayrtan ka yimid biyahan iyo fatahaadan wuxuu nooga baahan yahay garabsiin weyn waxaan si gaar ah ugu jeedinayaa baaqan walaalaha ku nool ama shacabka ku nool Galmudug oo daris la ah Hirshabeelle inay guryahooda u furaan inay gacantooda u furaan walaalahooda degmada Matabaan oo ka tirsan gobolka Hiiraan inay noqoto xarunta laga gargaarayo aan u jeedinayaa dadkaas abaabulka oo ka socdo sidaas oo kale ilaa Gurceel Dhuusamareeb ilaa Cadaado deegaanka Galmudug oo dhan kalkacay waxaan rabnaa inay u furaan walaalahood irdaha oo ay gacan siiyaan oo ay garab istaagaan oo ay muujiyaan gacaltinimo iyo walaaltinimo muuqata ay siiyaan dadkaas abaabulkooda hadda ima muuqdo sidii la rabay inuu yahay sidaas oo kale ganacsada Soomaaliyeed ee Ilaahay hantida siiyay inay u gargaaraan dadkaas aan rajaynaynaa oo ay gacan ka geystaan oo ay gargaarkaas ay fidiyaan oo aan ka sugin runtii masiibooyinkan way soo noqdeen markastana way nagu dhacaan waxaan u baahanahay marka inaan iska kaashano oo aan gacan ka geysano annaga haddaan xisbiga wadajir waxaan ku deeqaynaa oo gacan aan ka geysanaynaa inaan dadka baaqan dirno sidoo kale ilaa 500 marakaneeco ayaan ku deeqaynaa xisbi ahaan iyo 5 maalin oo biyo dhaamin ah in loo biyo dhaamiyo dadka ku qaxay biyo baxada in biyo dhaamis loo sameeyo intaas ayay tabarteena ku agtahay laakiin waxaan diyaar u nahay sida muuqata arkaysaan in teleefanadaas iyo baaqaas aad ka ajiibtaan taageerayaasha xisbiga iyo shacabka Soomaaliyeedba intii aan nala soo xiriiri kartaba inay la soo xiriiraan lambarada meesha ka muuqda oo EV Plus ku yaala si aan u gaarsiino gurmadkaas dadka gacantaasna aan u fidino dadka Soomaaliyeed ee halkaas ku dhibaataysan runtii waxaan u baahanahay masiibooyinkan soo noqday haddii aan laga hortagi karin in guddiga masiibada qaran la tayeeyo oo noqdo guddi tiknoolajiya tababar haysta oo daa'im ah oo saadaali kara dhibaatooyinka adduunka tiknoolajiyada jirto lagu ogaa karo dhibaatada soo socota lagu saadaali karo sidaas oo kale waxaan rabnaa inuu u tababarnaado falceliska degdega ah ee dhibaatooyinka noocan ah ugu yaraan inay dadkaanu laga badbaadiyo waan laga badbaadi karaa waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa walaalaha Puntland runtii gurmadka isxilqaanka ka sameeyay arrintan daraadeed dadku hadda waxay ugu baahi badan yihiin waa inay helaan doomo looga soo bixiyo meelaha ay ku go'doonsan yihiin
waana la heli karaa doomahaas deegaanadaas waa laga heli karaa inaan xoogga saarno badbaadinta dadka hadda go'doonsan ayaa ugu muhiimsan iyo barakacyaasha inaan gacan siino waxaan mar kale ku celinayaa iyadoo laga duulayo watacaawanu cala albiri wataqwa ilaahay isagoo yiri dadka mu'miniintaana nabiga uu yiri waxay ka mid yihiin jasadkooda hal mid ayay isugu mid yihiin inaan mar kale waxaan ku celinaynaa dhammaan dadka Soomaaliyeed inay garab istaagaan walaalaheen ku dhibaataysan kuwa ku go'doonsan kuwa ku qaxay kuwa ku barakacay gobolka Hiiraan si aan masiibadaas aan ula qaybsanay xanuunkaas waa maasantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.